الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله تعالى ولا waxaan kusoo guda jirnay fadaaishii ay lahayd salaadu. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri idaa ra'aytum ar-rajula haddii aad aragtaan ninka yactaadu masaajid ka caada dhiganaya masaajidka inuu aado inuu kusoo tukado fashhaduu lahu bil iimaan waxa u qirtaan iimaan u qira. قال الله عز وجل إلهي سبحانه وتعالى وحجري إنما يعمر وحا عمر مساجد الله مساجد إلهي وحا عمره من عدي آمن بالله إلهي رميسي واليوم الآخر يومانتي يوم القيامة. إن حديث كان محاك فإننا وإن تسنيا صلاة فضائشة إني كم تاي قفكي صلاة كذا إن الله سبحانه وتعالى إيمان وين وسينيو إنه إلهي سبحانه وتعالى إيمان وين وسينيو أيو حديث كانوا إنها تصنيها. النبي صلى الله عليه وسلم حجري إذا رأيتم الرجل هدي أركتان نين أما شخصي يعتاد المساجد كعادة ديغنيا مساجد كي ذهابه ويصلي فيه إنه مساجد كي آلو وكتكدو وصلاة ونكسن ورميسترون وخشوعسن ومقرنة ساعة وكتكدو صلاة داس النبي صلى الله عليه وسلم وحيري فشهدوا له بالإيمان وحا أقرتان قفكاس إنه إيمان ليحي أو حاتر على قفكاسو وأهل الإيمان مركا وسلادي تكدو مركا لوغوده قفكي سلادي وتكدي مركا لوغوده أنا دينتو مقرمنا ساعة سيبي أو فهان سنتاي أما فهان كيدو وفهان خاصة معها قفكاستو سلادي تكدا إن أترادي النبي صلى الله عليه وسلم وحوي وكير أقرأ صوته هذه أسئلة هذه المنافقين تبا ويتو كذا وحلقة جوا إن قلبي قاعد كتر هذه لو منافقين تبا ويتو كذا ما قرنا ساعة ده سيدنا كل عكرتا حتى منافقين تتكنسي إن ما قرنا ساعة لقدوا أهل الإيمان باتين وحوي مركو لقدوا هبل سلادي ويتو كذا أما marka lagu dhaho qofka salaadii wuu tukaday diintu marka ku dhaho salaad marka diintu dhaxdo kelimatu salaah markay dhahdo waxa la wadaa salaad dhameystiran ayaa laga wadaa laakiin munaafiqu isagu salaad dhameystiran ma tukado oo salaad khushuucdeedii iyo iidaadeedii iyo magaranaysa sidii loo gudan lahaa ay wax ka dhiman yihiin istusnimo iyo adduunyo iyo waxyaabahaas ay ku jirto ayuu tukanayaa markaas xadiisku wuxuu ka hadlayaa salaadii sharciga ahayd ee la yaqaanay ee rukuucdii iyo sujuudii iyo khushuucdii iyo ikhlaaskii iyo waxeediiba lahayd munaafiquna taama sameeyay markaana xadiisku wuxuu ku leeyahay qofkii hadaa aragtaan qof ka caadi rigtay masaajidka inuu aado macnaha qof aadaya masaajidkii oo ku tukanaya fashhadu lahu bil iimaan waxa u qirtaan iimaan sababtoo qofkaas uu salaadii dhabtahayd ee sharciga ahayd ee sharcigu yaqaanay ayuu tukanaya qofkaas maxaa yeelay nabiga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri innamaa yacmuru masaajida allahi man aamana billahi walyawmi alaakhir masaajida waxaa camira qof ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyey iyo qof ma garanaysaa maalinta yawmi alqiyaama ma garanaysaa rumeeyey tacmiiru lmasaajidna waxa weeye masaajidka inaad cibaado ku camirtid oo aad ku tukatid cibaado saxiixa oo diintu hadday kugu dhahdo shaygaasu waxa weeye waa la camiray oo cibaada masaajidka lagu camiray waxaa laga wadaa camiraadii caadiga ahayd ee diinta ahayd laakiin haddii aad tiraadid munaafiqu masaajidka wuu camiraa dee camiraadiisu tii caadiga ahayd ee la yaqaanay ee ma garanaysaa sharciga ahayd maaha camiraadiisu waxbaa ka dhiman camiraadiisu waxa weeye ikhlaas la-aan camiraadiisu waxaa ku jirta salaadiis inuu istus farabadan istusnimo inay ka buuxdo camiraadiisa nifaaqnimo iyo inuu magaranaysaa diinta necab ee hoosta ka necab ee ka buuxda marka camiraada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheegayo iyo tan munaafiq way kala duwan yihiin camiraada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheegayo waa camiraad bitaqwa wasalaah wadiin watadayun wa yani alcibaada waa camiraadaas laga wadaa markaana qofka sida uu camira camiraada labaadna hadduu doono ku darsado oo qofkii masaajidkii inuu dhiso in magaranaysaa uu hagaajiyo inkastoo ay ugu weyn tahay tan inuu qofku cibaadada ku camiro qofkaas waxa weeye waa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo maalinta yawmi alqiyaame rumeeyey oo iimaan laga helay markaa salaadu waxay ku tusinaysaa qofkii tukada awalan annahu yajidu aliimaan waxalaawata
wuxuu helayaa iimaan. hadduu dee cilad kale sameeyo mooji allahu aclam, hadduu riyaa iyo istusnimo iyo salaadiisii isbadhax tiro isaga jirta, laakiin salaada asliyan waxaa laga helaa al-iimaan. sababtoo ah inta salaada iimaanka iyo diinta iyo iqaamada iyo wanaagga ka helaysa oo usii siyaaday iimaankoodii, iyo inta riyaa iyo istusnimo u tukanaysa dee waxaa weeye way kala badan yihiin, isma gaarayaan. 80% waxaa badan inta aqlabku waxaa weeye inta salaada caadi u tukanaysa. haddee doonto ilaahay oo magaranaysaa may wax weyn ka faa'iidina. waxaa weeye nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiis kale wuxuu leeyahay oo Abu Hurayra ku warinayo, laa yazaalu axadukum fi salaatin maa daamat isalaatu taxbisu. laa yazaalu axadukum fi salaatin, qofkiin kama suulayo ama axadkiin kama suulayo salaad, maa daamat isalaatu taxbisu, maadaama ay salaadu xabisaso. maadaama ay salaadu xabisaso oo ay u diidayso inuu tago, waxa weeye qofkiin salaad iyo khayraad iyo malaa'igtu inay u duceynayso qofkaas kama suulayo. laa yamnacuhu an yanqaliba ilaa ahlihi ila salaad, macnaha in salaadu ay u diidayso inuu gurigiisii iyo ehelkiisii iyo xaafadiisii u ahdo. sidaa ogtihiin sharciyan waxa weeye salaada haddii la addimo qofku xaaje la-aan ma bixi karo, isagoo ayna dan haysan wax degdega wax daruura ma garanaysaa banaanka uma bixi karo. salaada haddii la addimo masaajka isagoo ku jira oo lagu addimo waxa weeye salaadaasuu sugaya wuu tukanaya. macnaha waa karaahiyo inuu qofkaasu baxo, waa karaahiyo oo ma garanaysaa diiniyan ma banaano oo waa karaahiyo, waa shay karaahiya. maadaama ay sidaa tahay, qofkii isagoo masaajidka joogay oo doonaya inuu xaafadii aado, hadhowtana masaajidkii uu joogay uu salaadii tukanayo oo isleeyahay salaada markaa tukatid xaafadda aad, qofka sidaas ah ee salaadii u diidayso inuu baxo, qofkaasu markaas ayuu salaad ku jiraa, markaas ayuu salaad iyo cibaado iyo dikri iyo wanaag iyo khayraad ku jiraa. marka qofkiin haddii xitaa masaajidku uu soo galo oo hore laga aqiimi waayo, yuu dhibsan oo yuu isdhihin ma garanaysaa mu'adinku muxuu la aqiimi waayey, kii tujinaya salaada imaamkii muu tujiyo dadka aanu tagne. marka waxba ha dhibsan, intaa ayaad iska samir, khayr iyo ajar iyo wanaag ayaa ka helaysaa. asliyanna dadkuna way ilowsan yihiin, oo dadku haddii lagugu dhaho ma garanaysaa maanta lagugu soo celiyo ama aad ogtahay inaad salaad aad kusii jirtid inta salaada ka harsan, dee ma garanaysaa waa khayr, waa waad farxi lahayd, madoo weli lahayn. laakiinse dadku badanaa way ilowsan yihiinba inay khayr iyo salaad ee masaajid ku jiraan, malaa'igtuna ay u duceynayso, way ilowsan yihiin. markaana waxaa la doonayaa in aad iska samirsid intaa, in ilaahay subxaanahu watacaala ajar weyn ku siiya ayaa la arkaa. nabigu sallallahu alayhi wasallam habeenada ka mid a ayaa wuxuu daahiyey salaadii cishe ilaa iyo habeen kala barkii la gaadhay. markaana hadhow ayuu soo qaabilay nabiga sallallahu alayhi wasallam, asxaabtii ayuu soo qaabilay markuu tukaday. salaadii markuu tujiyey ayuu asxaabtii wuxuu ku yidhi, salla annaasu waraqadu, dadkii way tukadeen wayna seexdeen, dadkii kale wayna tukadeen wayna seexdeen. walam tasaaluu fii salaatin mundu intadartumuuha, ilaa iyo markaa aad sugayseen salaada, ilaa iyo markaa aad sugayseen ma garanaysaa salaad kamayna sugin, ilaa iyo markii baad tukanayseen iyo ilaa iyo hadeer, ilaa iyo markii masaajidka aad soo gasheen oo aad salaad sugayseen iyo ilaa iyo hadeer sidaa u fadhideen ma garanaysaa salaad ayaa ku jirteen. markaana waxay ku tusinaysaa asxaabta ridwaanullaahi calayhim dadaalkoodii iyo khayrkoodii iyo wanaaggii ay soo hayeen iyo inay ku sabriyeen intaas oo saacadood inay masaajidka dhex fadhiyaan oo nebigu sallallahu alayhi wasallam tujiyo. markaana taas iimaankooda weyn ayay ku tusinaysaa, xaqiiqatu diin inay fahmeen oo ilaahay subxaanahu watacaala uu iimaankiiyo diintii fahansiiyey ayay ku tusinaysaa. sidaas oo kale ilaahay subxaanahu watacaala haynaga dhigeen. markaana nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu sameynayaa qofku sidiisaba asliyan markuu camal khayra qabto oo adag waa inaan qofkii u sheegta camalkii, waa inaad sii dhiirigelisaa, waa in fadaaisha fara badana laga helayo camalka ma garanaysaa laga sheekeeya. camaaisha ugu waaweyn ee diinta ee ma garanaysaa ee naftu xitaa kaanaso ilaahay subxaanahu watacaala fadaaishiisa wuu sheegaa. jihaadka inaad naftaada diinta ma garanaysaa daraadiya u goysid,
إن الله سبحانه وتعالى درادي أو لمديد إن وقتها قول دين إيه صلاة عبادة يصون أتكل مسجد وحا فضائش هو وين إله سبحانه وتعالى هو شيء أشرك يا خيرات كليه وتصنع وحكت سنة إن الله سبحانه وتعالى مكنسا ومدو لديريكلنيو ديريكلين وين أيه كت سنة مكان أصليا قف هذا عمل وين كو قبته مكنسا أشركيسا لو شيء ولو ما هذا عليا مكنسا قف كاس وناجي خير أيا الله قابله marka insha Allah ta'ala casharkeeni darsigeeni intaas ayuu ku joogaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh